السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأدين سلام يا صومالية ميل والبود دونك كجوكتان ولكن محمد إبراهيم عمر وبرنامج كالدين سو دياري وجيت كبرنامج كان وحكو سابسين هاي dad baryahan dambe caadaystay inay ku xad gudbaan ama jaa'ifayaan beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo beesha kuumade waxaan rabaa marka dhowr qof inaan idin tuso waxa ay leeyihiin iyo ujeedka ka dambeeya hadalkooda oo kliiba yar aan ka soo qabtay ninku ugu horeeyo wuxuu leeyahay horta waxa laga dhiganayaa base ama meel laga duulo hadalka nin askariya oo la yiraahdo Axmed Rashiid oo jooga Kenya. Axmed Rashiid waa nin askariya Soomaalida Kenya degan aad bay u taqaanaa islii oo tuugadii intay ku badatay maalin cad galowga la iskugu ridayo midi la isdhacayo la isboobayo maqribka iyo cishiga aan lagu tukanaynin masaajidada ayaa horta Axmed Rashiid Nairobi la keenay qaybta dambi baaridda dadkan tuugada iyo waxa raadiyay uu madax ka noqday kadibna uu ka sifeeyay dhibaatadii ka jirtay islii ama Nairobi. Axmed horta taariikhdiisa waa taa dadka meesha joogana way yaqaanaan laakiin baryahan dambe waxa aad u soo ifbaxday ama aan ka aragnay social media Facebook iyo YouTube in shaqo laga dhigtay Axmed Rashiid oo every day la soo gelinayo sawiradiisa iyo muuqaaladiisa oo la leeyahay caruur buu dilay dad buu dhacaa waxaan uu sameeyaa oo some of them markay hadlayaan aad moodayso in xitaa aqligii uusan jirin ama aan laga daba imaan karin hadallada la leeyahay marka waxaan keeni doonaa kow nin Axmed siduu ugu kala xigay kadib soo magacaabay ama sheegay in lala og yahay danna laga lahayn waxa uu sameeyay Axmed Rashiid oo markii horeba been ahayd wuxuu soo hadal qaadayaa Faarax Macalin oo la yaqaano nin xildhibaan iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya ka ahaan jiray meesha ujeedku ragga u magacaabayo waa inuu qabiil dadku u tusaa u dhahaa nimankaas waa niman qabiilka ka soo jeeda Axmed Rashiid ka dhashay wuxuu soo qaadayaa Faarax Macalin wuxuu soo qaadayaa ninkii ahaa xildhibaankii laga soo doortay Kamakunji Isli Yusuf Xasan oo uu leeyahay maxaa raggaa helay may ka hadlaan dhibaatada uu sameeyay Axmed Rashiid xitaa wuxuusan deynin ninka culimadii Soomaaliya oo dhan culimada u ahayd Isli oo uu leeyahay maxaad u aamusantihiin waryaada maxaad u aamusantihiin ma hadashaan masaajidada mad ka sheegtaan ninkan idab darrada uu sameeyo ilaa heerkaas uu gaaraya ninkan inuu sameeyo marka waxaan u maleynayaa maanta xilliga lagu jiro xilli views lagu raadsan karo ama lacag lagu raadsan karo in ummad dhan la jaa'ifeeyo ama qabiil dhan meel laga dhaco ma aha ta kale hada wax yar oo ka hesha xataa lacaga ma mustaqbal bay tahay in ummad Soomaaliyeed aad ku xad gudubto oo jaa'ifeyso oo xogaa shilimaan iyo views oo ku raadsanaya aad meel kaga dhacdo qoomiyaddan oo meel degan waa maya marka ninkaas marka hore intusayaa videogiisa ila arka kadibna waxaan u noqonaynaa nimanka kale ee barnaamijkan ayagana ku kala xigay wax kale maaha dhimashada ninkani dadka uu dilo raalli bay ka yihiin iyaga raba waana ku raaxaystaan diyaar marka uu soo dilo dib uma fiiriyaan sababtoo ayuu dilay Soomaali buu dilay yaa dilay Soomaali baa dilay qofka dhintay waa ayo Soomaali ha ka yimaado Soomaaliya ama ha ahaado dadka deegaanada beenbeenta magaca loo baxshay oo xuduudda ay naga haystaan degan ku doona ha ahaado uma kala duwana la yaab waxa la yaab imise xildhibaan bay leeyihiin imise wasiir bay leeyihiin away dadkii dhihi jiray Soomaaliya xaqeedan ka hadlay Faarax Macalin away muxuu uga hadli waayay ninkan waxyaabaha anigu aan la yaabay waxa way Faarax Macalin wuxuu aniga ilaaha ninka ugu xaq u dirirka badan ee Soomaaliga ah ee jooga Kenya away Faarax Macalin sabab uu uga hadli waayay Axmed Rashiid sababta uga hadli waayay maxay tahay Yusuf Xasan oo nin aqoon-yahan Soomaaliyeed oo hadda ka hor macnaha xataa inuu ahaa baan u malaynayaa haddaanan qaldanayn agaasimaha BBC uu xataa mar aha nin aqoon-yahana oo qaramada midoobay u soo
human rights watch miyay ahayd mise amnesty international labadaas midun buu u shaqeeyey nin u soo shaqeeyey dadka xuquuqda bini aadanka u dooda aaway muxuu uga hadli laayahay ninkan sababtu maxay tahay yaa dadka afka haystaa nin walba maxilkiisuu ilaashanaya faarax macallinow adeer gacaliye waalid baadii tahay oo dee waad dhali kartahay aabbahay baad la facaha tahay adeer gacaliye soomaaliyaba iyo farmaajoba waa ka hadli taqaanaaye axmed rashiid adeer maxaa uga hadli weye xaggee wax ka jiraan culimadeenna aaway culimadii maxaa uga hadli weydeen maxaa ninkan looga hadli laaya waa ka haraynaa oo waa daynaynaa oo hadalkiisa soo qaadi mayno ninkan hadduu wax saxa ku dhaqmo oo aad ka sheegtaan masaajida oo tirahdaan wanaag buu fuliyaa annaguna waa daynaynaa laakiin waad og tihiin idinkaa og superpower waa hadday jiri jirtay dhammaatay maanta kuwanaa superpowera kuwa albaabada hooyooyinka masaakiinta ah ka qaada hiliblaha kuwa ah iyo kuwa baradhada iyo kuwa bakhaarada leh waad ila aragteen ninka waxa uu meesha ka samaynayo waxaan rabaa in aan idin tuso laba nin oo kale oo barnaamijka markaan leeyahay waa coordinated waxaad moodaa in ay garan waayeen xataa inay backgroundka iska bedelaan they have the same background labada nin midna yaasiin baa lahaa midna boodhari baa lahaa waxay sameeyeen nimanka markaa too much exaggeration aan caadi ahayn weliba ninka la dhaho boodhari waa ruwaayadiiste anigu nin aqaan maaha laakiin waa nin minaha ku fiicnaan lahaa talentigiisa inuu la aado meel viewsna uu ku heli karo soomaalidana uga faa'iideyn kara talentigiisa waa nin aad u hadla yaqaana actingkana ku fiican gacan baa ruflis iyo garabka la saartay tukala gacan baa ruflis iyo garabka siduu u jilaya xitaa filinka it is interesting laakiin wuxuu ka hadlayo because qofka hadduu ka hadlayo topic xun oon micno samaynaynin xikmadiisa iyo hadalkiisana micno ma samaynayaan marka waxaa loo baahan yahay ama ragga kale ee youtubeleydaba aan kula talin lahaa ilma adeerayaalow haddaad rabtaan in aad magacna yeelataan waxna ka heshaan youtube iyo facebook u bedela contentigiina wax caruurtaada ay daawan karto reerkaaga daawan karo qaraabadaada daawan karto oo qurux badan oo ummaddana aad uga faa'iideyn karto storytelling waxa la dhaho waa lisaga faa'iideeyaa qofka markaad u sheekayso wuxuu ka heli karaa in intaad motivate garayso ama aad moralkiisa kor u qaado ruuxaas u noqdo ruux guulaysta nolosha ku guulaysta oo wuxuu rabana sameeya ama barta laakiin haddaad ka dhammaan weydo nin baa la dilay nin baa kuruf laga siiyey iyo waxaan loo joogin aad views ku raadiso ama gabaray aad isqaawiso tiktok iyo youtube soo dhex fariisato is not wax meel lagu gaaraya maaha marka labada nin baan rabaa inaad ayagana warkooda aad ila aragtaan clipkan ila fiiriya salaamaad min kulli afaad wixii hore wacwacu daa qaatilkii weynaa ee axmed rashiid baabaa gandaariya oo lug la baxay baangad ma maqashta filinkii waaqwaaq qoorgooye ninkaa ma aragteen waa ka fideogina isagiina wakaa sidaa intuu qabtay buu lug ruf ka sii innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun walle kaama haro siku yamisi ni 40 wewe wayazina waxa weeye sawaaxil ku hadlay siku yamisi ni 40 macnaheedu waxa weeye tug waxa uu dibad meeraysto dulmi doona 40 maalmood kala badna waa la hayaa isagoo eedeysana ceeb ay ka muuqato ninka lugtiisa idin muuqato ma aragtaan lugtu gooday ilaa banta tan kalena waka ciidamada saa ciqaab baday sidoo kumalaan kale u dulmiyo isagana daryeel xumo iyo dulnimo la doono waad aragteen nimanka waxa ay samaynayaan oo u badan exaggeration iyo waxaan jirin waxaan rabaa markaa in la fahmo waxa beenta la dhaho inaysan fiicnayn oo ruuxood been ka sheegtaa xitaa haddaad wax ku hesho wixii aad ku heshay aysan xalaal ku ahayn marka exaggeration iyo been ma shaqaynayaan ujeedkeenana waxaa weeye inaan ka daba tagno wixii beena meesha laga sheego
ama xadgudubee loo geysto ummadda soomaaliyeed. Finally clip yar oo dhowr sekanaan rabaa inaad idin tuso. Nin raba oo ka hadlaya isagana Axmed Rashiid oo sheegaya Axmed Rashiid inuusan qabiil ahayn oon qabiilna loo aanayn karin wuxuu u sameeyo. At the same time ku tilmaamaya Axmed Rashiid inuu qabiil leeyahay. Marka qaybta idinka tusi rabo waxaa weeye inuu yiri Axmed Rashiid markii la qabsaday wuxuu yiri aniga cid wax iga qaadi karto ma jirto. Marka ninkii wax sheegay laftirkiisa intuu isla yaabay oo wuxuu leeyahay ama buur ahow ama buur ku tiirsanow. Markaasuu qoslayaa isagoo ka dhigaya markaa Axmed Rashiid reer buuro inuu ka dhashay. Marka isagu laftirkiisa qabyaalad buu dadku u sheegayaa laakiin wuxuu iska dhigayaa inaan qabyaalad aan dan ka lahayn. Marka Soomaaliyay dadkan baa rabaa marka inay la wada aragtaan oo ila analyze gareysaan sida aan u analyze gareeyay ama aan u arkay. Wad mahadsantihiin, khayr badan iyo barwaaqo ayaan idin rajeynayaa. Barnaamijyo kalena waan soo wadaa. Haddii aad ka heshay contentiga ama videoga aad ka heshay, like iyo subscribe iyo share noo dheh. Waxaan rabnaa mindsetka Soomaalida inaan bedelno si aan u noqono ummad wax fiican ka sheekaysa, wax fiican qabata, wax fiicanna samaysa, waddankoodiina u tashata oo meel fiican ka gaarta tartanka adduunka loogu jiro horumarka. Idin salaamayaa, khayr iyo baraare. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.